بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaan rabaa inaan ka hadlo arrin yar oo kooban oo dhacday maantay muxuu ahaa baarlamaanka ka dhacday oo laga yaabo dadkoo dhan inay sugahayaan oo la leeyahay seeba wax u dhaceen maxaa la qabtay maxaa inay dadku ay shacabka iyo ciidamada iyo dadka danaynaya dhammaan inay rabaan inay wax ku ogaadaan. waxaa dhacday in la go'aansaday in la qabto shirkii baarlamaanka kadibna aan haba yaraatee wax ciidana lala gelin gudaha baarlamaanka. arrintaas ayaa go'aanku ahaa. nasiib darro waxaa dhacday ciidan ayaa galay baarlamaanka galay oo hubaysan. markii xildhibaanadii iyo ay yimaadeen ay rabaan gudihii inay galaan waxaa la ogaaday oo security-ga hay-adaha security-ga ay ogaadeen in ciidan hubaysan oo aan la ogeyn inay meeshii galeen. markaan tagnay meeshii ciidamadii waxay ahaayeen ciidamo darees qabay oo sida dareeska ciidamada kale militariga qaba iyo kuwo dharcad intaba way lahaayeen. waxaanan isku daynay inaan si sahla uga soo saarno si aysan arrintu saa u soo fogaanin. arrintaas iyaga marka amarkii waa qaadan waayeen. annagu wax tilaabo ah oo aan ka qaadnay ma jirin. sababtu waxa weeye waxaan ilaalinaynay amniga guud iyo sharafka iyo muxuu ahaa xasiloonida dalka gaar ahaanna baarlamaanka oo aan markaas joognay. waxaan muxuu ahaa go'aansanay markaan ka shirnay in si nabada looga soo saaro baarlamaankana la xiro uusan maanta shirkaasi dhici karin in laga soo saaro oo la yidhahdo baarlamaanka shirkii waa baaqday ciidamadii galayna laga soo saaro. kadibna waxaan muxuu ahaa go'aansanay inaan ciidankii meeshaa galay oo amardiidada sameeyey inaan soo qabanno oo aan ka soo kaxayno meelihii iyo barihii ay joogeen. ciidankaasi hadda intiisii badneyd gacanteenna ku jirtaa. kuwo kalena weli waa ay maqan yihiin waana muxuu ahaa laga daba tegaya waana la keenaya. waxaa kaloo macquul ah inay jiraan ciidamo kale oo maleeshiyaad aan ka mid ahayn ciidamada qalabka sida ka mid ahayn oo laga yaabo inay ku gabadeen. ayadana waa ogaanaynaa. wararka waxaan helnay inay ku jiraan waa ogaanaynaa waa baaraynaa ayagana waa soo qabanaynaa haddii ilaahay yidhaahdo. marka hadda arrintu si nabad ahay ku dhammaatay. xasilooni baa jirta wax dhibaataha jiraa ma jiraan. saasaan rabnaa inaan dadku ay u ogaadaan wax allaale iyo wixii ayagu damca ama isku daya inay ka boodaan ama ay ka tillaabsadaan shuruucda dalka. tillaabo fiican baa laga qaadahayaa oo munaasib ku ah oo qof waliba iyo gruub walba waxay istaahilaan sida maanta taas dhacday oo kale annaga oo ka fiirsanayna inaanaan khalkhal gelin xasiloonida dalka. waana mahadsantihin.